kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka All Banaadir waa 4 bishii 8 sanada 2020 ku soo dhawaada wararka 24 saac ee janalka All Banaadir qodobada aad daawan doontaana waxa kamid ah siyaha wasiirka maaliyadda oo diiday bixinta lacag oo amray ra'iisul wasaarihii hore ee dalka iyo xildhibaano eedayn dusha kaga tuuray siyaha wasiirka maaliyadda wadada xiriirisa Muqdisho afgooyo oo dhismo lagu bilaabay diyaarad ay leeyihiin ciidanka Kenya oo ku burburtay degmada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose wararka ka baxsan Soomaalidu aad daawan doontaana waxa kamid ah Israa'iil oo duqeyn ka fulisay saldhigyo ku yaala gudaha wadanka Syria daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararka 24 saac ee janalka All Banaadir imika tan ku soo dhawaada iyagii oo inta ka faahfaahsan madaxtooyada dawladda Soomaaliya ayaa dalka keentay musharax cusub kaas oo loo wado xilka ra'iisul wasaaraha dalka wararka laga helay madaxtooyada dawladda Soomaaliya ayaa sheegaya in musharax cusub uu ku soo biiray dadka la filayo in loo magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha dalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waqtiga ku socdo ayaa wali la tashiyo ku saabsan qofkii uu xilka ra'iisul wasaaraha u magacaabi lahaa xilligan wado wuxuuna waraysiyo la yeeshay dhowr musharax oo xilkaas u taagan xilligan ay qabtaan laakiin wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay madaxtooyada dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in musharax cusub oo ku soo biiray tartankan adag ee loogu jiro qabashada xilka ra'iisul wasaaranimada madaxweyne Farmaajo ayaa u yeeray wiil uu dhalay diblomaasi hore Cabdullaahi Axmed Cadow oo dhowr jeer xilka madaxweynaha Soomaaliya isku soo sharaxay ninkan oo lagu magacaabo Hanad una soo shaqeeyay qaramada midoobay ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha Muqdisho iyadoo halkaas ay ka soo qaadeen ciidamo ka tirsan koofiya casta madaxtooyada ilaalada ka haysa lama ogo inuu ka mid yahay liiska musharaxiinta xilka iyo in uu madaxweyne Farmaajo go'aansaday inuu xilka ra'iisul wasaaraha u magacaabo Hanad Cabdullaahi Axmed taasoo la ogaan doono xilli dhow waxaana rajada ugu badan xilligan qaba waa ninkan cusub oo madaxweynaha ugu yeeray wadanka dibadiisa waxaana loo badinayay wasiiro ka tirsanaa xukuumadii xilka sida xoogga laga xayuubiyay ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre kuwaas oo loolan iyo hardan adag ugu jiray qabashada xilka ra'iisul wasaaranimo inkastoo rajadoodii xilligan ay tahay mid mugdi sii galaysa maadaama shaqsi cusub laga dalbay wadanka dibadiisa kaas oo madaxweynaha dawladda Soomaaliya uu u yeeray isagoona la rajaynayo in uu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka laga yaabayse in madaxweynaha dawladda Soomaaliya uu shakhsi kale u magacaabo iyadoo shakhsigan uu wadanka dibadiisa kaga yeeray wax walba ayaan isbedeli kara saacadaha soo socdo maadaama la tashiyada iyo kulamada madaxweyne Farmaajo saacadda ka dambeeyay ay aad u sii xoogaysanayaan waxaana hardanka iyo tartanka adag ku soo biiraya loolankaas musharaxiin cusub oo iyagu doonaya inay xilkan qabtaan wasiir Bayle ayaa diiday bixinta lacag ra'iisul wasaarihii hore ee dalka uu u qoondeeyay fatahaadda webiga Shabeelle siyaha wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa diiday bixinta lacag ra'iisul wasaarihii iscasilay ee Xasan Cali Kheyre oo u qoondeeyay fatahaadda degmada Afgooye kuna amray wasaaradda maaliyadda inay bixiso wasiir Bayle ayaa sheegay in lacagta oo gaaraysa 500 oo kun oo dollar uusan bixin doonin inta laga helayo hanaan cad oo looga hortagi karo in lacagtaasi la musuqmaasuqo waxaana arrintaasi cambaareeyay xildhibaano ka soo jeeda degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose lacagtaan ayaa ahayd mid loogu talagalay dadka fatahaadu ay saameeyeen waxaana ra'iisul wasaarihii hore wasiirka maaliyadda ku amray in uu si degdeg ah ku bixiyo si wax looga qabto xaaladda adag ee ka taagan degmada Afgooye laakiin waxa muuqda in wasiir Bayle uusan bixin doonin lacagtaas maadaama xilligan uu ku dhagan yahay lacagta bixinteeda siyaha wasiirka maaliyadda ayaa ku doodaya in la helo gudiyo ka shaqeynaya arrimaha gargaarka degmada Afgooye iyo sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed oo la aamini karo xilligan lacagtaasna lagu aamini karo lacagaha dawladda federaalka Soomaaliya u qoondeysay maalmaha dhibaatooyinka ay dhacaan ayaa la bixin ama muddo dheerba qaadata bixintooda waxaana hore loogu eedeyn jiray mas'uuliyiinta dawladda in ay ballanqaad ka sameeyaan balse bixinta lacagtu ay tahay mid adkaata ra'iisul wasaarihii hore xukuumadda Soomaaliya ee xilka sida xoogga laga xayuubiyay ayaa intii uusan ka tagin xafiiska waxa uu amray in lacagtaas la siiyo dadka fatahaadu ay ku saameysay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose maadaama dadkaas ay gargaar bini'aadanimo xilligaas ay u baahnaayeen waxaan wasiirka maaliyadda wasiir Bayle xilligaas lagu amray in uu bixiyo lacag gaaraysa nus milyan taas oo wax looga qabanayo musiibada ku absatay dadka degmada Afgooye iyo tuulooyinka hoostaga kuwaas oo la dalaadhacay dhibaatooyin ka soo gaaray fatahaadda webiga Shabeelle balse markii uu xafiiska baneeyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre si lama filaan ah ayaa waxa wasiir Bayle uu sheegay in lacagtaas aan la bixin doonin ilaa inta laga helayo dad lacagtaas ballan qaada oo gudiyo ay qayb ka yihiin iyo madaxda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waxayse dad badan xilligan aaminsan yihiin in xitaa haddii la helo qaar ka mid ah madaxda Koonfur Galbeed iyo sidoo kale gudi loo saaro in lacagtaas sidii saxda ahayn uusan u bixin doonin wasiir Bayle maadaama xilligan la wada ogsoon yahay in Bayle lacagtaas uu doonin in ay baxdo isagoona doonaya in lacagtaas qayb ka mid ah dadkaas la siiyo halka qaybta kalena uusan sheegin wax lagu qabanayo balse ay tahay mid asaga si madax banaan laga yaabo in uu la haro
dhinaca kale wasiir Khadiija ayaa eedeyn u jeedisay wasiirka maaliyadda xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiriye oo ka tirsan golaha shacabka ayaa eedeyn u jeedisay wasiir Bayle in uu ku fashilmay bixinta lacagaha gargaarka ee degmada Afgooye isla markaana dadka deegaanka xilligan ay u baahan yihiin in la gaarsiiyo gurmad wax ku ool ah waxa ay sheegtay in shacabka Afgooye ay guryahooda ka barakaceen isla markaana ay tahay wax laga xumaado in wasiirka uu shuruud ku xiro bixinta lacagta gargaarka oo uu hore u amray ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre siihayaa wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa shuruud ku xiray bixinta lacagta loogu talagalay shacabka ku dhibaataysan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose lacagtan oo dhan nus milyan dollar ayaa waxa uu wasiir Bayle sheegay in ay bixin doonaan haddii ay helaan hanaan cad oo looga hortagi karo lacagtaas in la musuqmaasuqo lacagtan oo dhan nus milyan ayaa 20 bari ka hor waxaa ballan qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre intii xafiiska uu joogay balse xilligan waxaa soo ifbaxday in wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo sii haya xilligan ah uu doonayo lacagtaas inaysan ka bixin halka ay taalo dadka ku nool degmada Afgooye oo xilligan la daalaadhacayo dhibaatada ka soo gaartay fatahaadda webiga Shabeelle ayaa rajadooda xilligan ay xumaanaysaa maadaama lacagtii loo ballan qaaday ra'iisul wasaarihii hore dalkana uu u ballan qaaday in dadkaas wax loogu qabto ay tahay xilligan mid la isku haysto maalinba maalinta ka dambeysana la isku tuurtuurayo wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye ayaa dib loo bilaabay dhismaheeda shirkadda laga leeyahay waddanka Turkiga ayaa ku guuleysatay inay laamiga ku bilowdo wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye dowladda Soomaaliya ayaana ciidamo dheeraad ah u xil saartay ilaalinta wadada inta uu socdo dhismaha wadadaas waxaana horey loo weeraray dhowr jeer iyadoo ay socdaan dhismaha wadadan ayaa dhaqaalaha lagu dhisay waxa bixisay dowladda Qatar waxaana loogu talagalay in looga baxo dhibaatooyinka shacabka ay ku qabaan marista wadadaas shirkad laga leeyahay dalka Turkiga ayaana fulinaysa dhismaha wadadan iyadoo horey ugu howlaneed dhismaha wadadan muddo dheerna halkaasi ka waday intii uu socday dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye ayaa dhowr jeer waxa weerar lagu qaaday injineero wadadaas dhisayay waxaana la xasuustaa qarax lagu weeraray oo ka dhacay Axis Control oo ay ku geeriyoodeen injineero Turki ah iyo sidoo kale halka lagu magacaabo Carbiska qarax kale oo lagu la eegtay kaas oo ahaa mid khasaare soo gaarsiiyay shaqaalihii dhisay wadada xilli ay ku guda jireen qadam maalmeedkooda waxaana xilliga kadib gala hakad dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye muddo 6 bilood ah oo wadadaas ay hakad ku jirtay dhismaheeda ayaa dhawaan dib loo bilaabay waxaana xilligan ay noqonaysaa mid wadadaas lagu guuleystay laami saarista diyaaradda ay leeyihiin ciidanka Kenya ayaa ku burburtay magaalada Dhobley wararka naga soo gaaraya degmada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegayaan in diyaaradda ay leeyihiin ciidanka Kenya ay ku burburtay garoonka diyaaradaha degmadaas oo ay isticmaalaan ciidanka Kenya ee ku sugan Soomaaliya goobjoogayaal halka ku sugan ayaa xaqiijiyay in diyaaradan ay sahay u siday ciidanka ayna ku burburtay garoonka markii ay soo caga dhigatay inta la xaqiijiyay hal qof oo ahaa duuliyihii diyaaradda ayaa ku geeriyooday waxaana sidoo kale jira dad kale oo ku dhaawacmay shilka diyaaradeed ciidanka Kenya ayaana wali wax faahfaahin ah dhacdadaas aanan ka bixinin waxaana sidaan oo kale ay ahayd markii diyaarad laga leeyahay waddanka Kenya ay ku burburtay garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taas oo sahay u siday ciidanka Djibouti ee qaybta ka AMISOM howlgalkan u jooga Soomaaliya ciidamo badan oo ka tirsan kuwa Kenya ayaa ku sugan gudaha Soomaaliya kuwaas oo ka qayb qaata dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab waxaana ciidanka Kenya ay yihiin kuwa sahayda looga keeno gudaha waddanka Kenya lama oga sababta dhabta ah ee ka dambeysay burburka diyaaradan ku burburtay garoonka degmada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose daawadayaal wali waxaad daawanaysaan oo la socotaan wararka 24 saac ee janalka Olbanaadir markaana akhbaraadka caalamka dowladda Israa'iil ayaa duqeyn ka fulisay saldhigyo ku yaala gudaha waddanka Syria diyaaradaha Israa'iil ayaa waxay duqeyn ku bartilmaameedsadeen saldhigyo military oo ay leeyihiin ciidanka waddanka Syria qoraal dhif naadir ah oo ay soo saareen ciidanka Israa'iil ayay ku xaqiijiyeen duqeyntaas ay ka fuliyeen gudaha dalka Syria warbaahinta dowladda Syria ayaana qirtay in duqeyn dhanka cirka ah loo geystay saldhigyo military oo ciidanka Suuriya ay ku leeyihiin meel u dhow caasimadda waddanka Syria ee Dimashq duqeyntaas ayaa sida ay xaqiijisay xukuumadda Suuriya waxay geysatay waxyeelo oo aan ilaa iyo hadda la xaqiijin karin inta ay gaarsiisan tahay ciidanka difaaca Israa'iil ayaa sheegay in talaabadan duqeyntaasi ay ka mid tahay argoosi afayeenka Israa'iil oo lagu magacaabo Colonel Jonathan ayaa sheegay in aan lagu degdegi karin in la yiraahdo raggaasi waxa ay ka tirsanaayeen ururo argagixiso ah balse Israa'iil ay la xisaabtami doonto xukuumadda waddanka Syria weerarkan ayaa la beegsaday xarumaha kormeerka iyo sidoo kale goobaha ururinta xogta sirdoonka xarumaha madaafiicda lidka diyaaradaha ee saldhigyada ciidanka waddanka Syria ay ku leeyihiin magaalooyin u dhow magaalada Dimashq ee caasimadda u ah waddanka Syria saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay in dhawaan ay dileen 4 ruux kuwaas oo ay sheegeen in miinooyin ku aasiyeen
aagga buuraha Golan Heights waxayna sheegeen afartaas qof inay ka tirsanaayeen ururo argagixiso balse ciidanka Israa'iil ay toogasho ku dileen xilli ay ku guda jireen aasitaanka miinooyin. Daawadayaal intaas waxaa ku dhan wararka 24 saac oo aad kala socoteen janaalka All Banaadir. Waad ku mahadsantihiin la socodka iyo la saanqaadka warkeena.